shalay maaha duraad waxaa jeelka magaalada Berbera isku dildilay laba maxbuus mid waa dhintay midna waa laga gaaray wasiirka cadaaladdu wuxuu shalay toole saxaafadda u sheegay ninka dhintay inuu xanuunsanayay xanuunku nooc uu ahaana ummadda uma cadaynin su'aalaha ka dhalan karaya waxa weeyaan qof xanuunsanaya oo maskaxda ka xanuunsanaya oo heer ay gaadhay inuu isdildilo cidda xukuntay waayo cidda jeelka ku haysay qof noocaas ah waayo cidda u fududaysay jeelka oo meel baxnaano iyo xanaano gaara loogu sameeyo maxaabiista rehabilitation center ah in xadhiga isku dildilayo u geysay waayo saxa su'aalood boo dhalanaya xukuumaddan hadda jirta 7 sanadood xilka dalka ay haysay waxay ku guuldareysatay inay sameeyso xeerka xabsiyada iyo maxaabiista jeelka magaalada Gabiley Amnesty International warbixin bay 2006 ka soo saartay inuu kufsi fool xun ka dhacay tacadiye fara badan baa ka jira jeelasha dalka cadaalad darro fara badan baa ka jirta qol kaliyaata ayaa 70 qof lagu xidhaya caafimaad darro ka jirta baxnaan la'aan baa ka jirta waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo kuwa xuquuqda aadamaha u dhaqaaqa ay u fasaxdo inay toos u galaan jeelasha oo xaqiiqda dhabta iyo xaaladda ku sugayn maxaabistu la soo ogaado laba qoyskii marxuumka dhintay waxaan ugu baaqaynaa inay dacwad ku soo ogaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo taliyaha ciidanka asluubta dhayalsiga ay keeneen inay xurmada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka siiyey waxa ugu qaalisan nafta inay nafi baxdo oo bartaa uu ku dhinto ninkaas cadaalad darana muddo intaa leeg meesha loogu hayay haddii uu jirto sida uu sheegay ninka wasiirkii inuu qofkaasi xanuunsanayn waxay xaq u leeyihiin magdhow rasmi ah waxaana ku helayaan dacwad ay ka furtaan maxkamadaha ciddii xukunka ninkaa u geysatayna waxaan ugu baaqaynaa in xilka guddida cadaaladdu ay ka qaataan garsooruhu doonaba ahaada wabilaahi tawfiiq